السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيلي هاي ملفي عين هاي اسكور رما أصحابتا إن وصودا هاي محن كلها ما أنت وحان ربي إن أن متغانا إن أن هرو السوقلين I hope إن أي تشدان دي أركتان إن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحمد لله رب العالمين. إلهي وأنا شكر نغيا هل كان كيني ماركتي أو إن ماركتا السكان كيني عاوة إن محن كلها هذا وليد وقت دم بوايل لكن إن شاء الله إن كل واحد مكتشري دون هذه الله وحن سمينا يا إن ماركتا وحير بسوقيا بد إن دد صوغلان إن محن كلها إن سود وهذا ولا ليال إن شاء الله واحد في عنو فائدة اللي بانكلا قاعدنا عاوة إن كسود وهذا البرنامج إن مارتا برنامجك سيدات كل وجه شيدان إن شاء الله وحن كهالي دونا إن متقانا قيمين تنفتا وحن سدح سؤالات بانكور قصوقري قيمين تنفتا أما سلف ستيم كسيد اللي يغانو قف إنجليش كلو يغانو إيو بحن كلها سدح سؤال مركوحيين إلى هيك أياد قيميسا نفتا maxaan ku dhahaa ilaa heerkeebaad ayaad maxaan ku dhahaa qiimaysaa naftaada midda kale maxay tahay mataqaanaa qiimaynta naftu tan kalena waxa weeyaan maxay maxaan ku dhahaa ku kala duwan yihiin qiimaynta nafta iyo mataqaan maxaan ku dhahaa iyo waxa la dhaho isku kalsoonida qiimaynta nafta iyo isku kalsoonida maxay ku kala duwan yihiin marka maxaan ku dhahaa صدق راس قضب بان كهل الدونا إن شاء الله محن كلها محرتا هلا هذا ويل كي جاي له هذا هو يدهاي مركا هرتا وحن كهر مريا دي لها إدمو وحن كهر مريا وحن كهر مريا محيطة هاي قيمين تنفطو أما محيوها سلف استيم horta qiimaynta naftu ama self esteemku afka qalaad markaan fiiriyo laatiinka waxaa la yiraahdaa qiimaynta naftu waxa weeyaan self estimate bay ka timid oo laatiin ah waa qiimaynta nafta waa yacni naftaada aad qiimo u yeelaysid aad qadarinaysid af Soomaaligana inaka waxa u naqaanaaba waa qiimayntii naftii oo naftaada aad qiimaynaysaa marka waxa weeyaan naftaada ilaa xadkeeba aad gaarsiisaa ama aad mataqaana ay ilaa heerkeeba aad gaarsiisaa dadka ilaahay isku mid ma ahaade qof walba waa si gaara qofba sibay maaragtaa qofba heer buu joogaa heerka uu asagu awoodihii uu leeyahay oo ilaahay maaragtaa wuxuu ku abuuray asaga maaragtaa awoodda ilaahay u siiyay bay qofku ku xirantaa qalbigiisa iyo maaragtay waxa ilaahay geliyay marka haddaan soo qaato maxaan ku dhahaa way badan tahay marka laga hadlayo qiimaynta nafta waxaa jira dad qofka maxay dad waxa weeyaan waxay isu arkaan inay qiimeyntooda naftooda heer sare waayo heer sare gaarsiisan tahay oo aad iyo aad bay naftooda u qaybiyaan marka qiimeynteedu dad baaba kasii qaadaba maaragtay hadday aad iyo aad maaragtay say isu arkaan ama isu malaynayaan ama siday mataqaanaa wax kan waan qabsan karaa kan waan samayn karaa magaciisa aniga dad baa maaragtay ilaa ay xad say naftooda u arkaan waxay arkaanba inay meel kasta ka boodi karaan oo in libax san ka taabtay wada yihiin kulligood maaragtaa oo ma ilaahay awooddaas siiyey oo nafta ila dadna waxa weeyaan waa dad cabsada oo boqo marka waxa lagu leeyahay
qiimeynta sare nafta qiimeynteeda sare qofka waxa waaye waxay siisaa isku kalsooni badan bay gelisaa ama waxay gelisaa maaragtay inuu awood u leeyahay ilaahay awood u siiyo inuu maaragtay maaragtaa uu maaragtay waxyaalo badan oo laga yaabo qof inuu ka boqo u bareero oo waxyaalo badan maaragtaa uu samayn karo oo hadday noqoto inuu wax baranayo hadday noqoto inuu meel sare gaaro hadday noqoto qof leh hiigsi buu leeyahay marka hiigsigiisa mataqaanaa hiigsi buu leeyahay oo hiigsi uu meel ku gaaruu leeyahay waxaa gelinaysa marka hiigsigaas qofku inuu yeesho qiimeynta naftiisa qiimaha ay leedahay ama siduu naftiisa u jecel yahay ama siduu naftiisa mataqaanaa uu isu arkaba asaga qof ahaan uu isu arko inuu isu arko qof maaragtay maxaan ku dhahaa wax qabsan karaa meel kasta samaysan karaa maxaan ku dhahaa aan isu arag maaragtay qof kaleeto inuu maaragtaa uu ka sareeyo aan isu arag maaragtay maxaan ku dhahaa xataa wuxuu awood u leeyahay waxyaalaha maaragtay sideedaba qofka naftiisa dhaawici kara ama maaragtay nafta qofka maaragtay dhaawac u geysan karo oo wax ma qabsan kartid sida hadda inaga bulshadeena oo kaleeto haddaan soo qaato soomaalida bulshada soomaalida waa bulsho sideedaba aan ahayn bulsho dadka ku caawinta ama ku boorida qofkay arkaan inuu waxba qabsanayo waxaa dhici karta haddii qof uu riyo asagoo wata ku imaado oo qof baa waxa laga yaabaaba inuusan lacag haysan laakiin wuxuu niyad weyn ku hayaa inuu wax qabsado oo higsigaas iyo wax qabso baa ku jirta marka qofkii waxaa laga yaabaa asagoo waxba haysan inuu inta u yimaado qof yiraahdo saaxiib ah ama fareen ama qof saaxiibkiisa ama qaraabo ay yihiin ku dhaho fiiri hebel waxaan rabaa inaan dukaan furto waxaa laga yaabaa inuusan haysan 2,000 xataa laakiin himad buu hayaa niyad buu hayaa markaasoo kale qofkii waxaa laga yaabaa himadaas iyo niyaddaa la imaanaya in sida aan u badanahay bulshadeena waa tahay sida aan u badanahay boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 bulshadeena way tahay waxaa laga yaabaa inuu soo fiiriyo dhaho waa maxay waxaad sheegaysaa ma lacagba ma haysatid ma lacagta ma waxaad ka keenaysaa dabadaadaad ka keenaysaa xaggaad ka keenaysaa war lacag ma haysatid naga fariis ama ma taqaana waad soo ogtahay xaggaad lacag ka keenaysaa laakiin ma ay dhahayaan oo ma ku dhahayaan qofkii allaha subxaanahu wa tacaala leedahay ma taqaanaa haddaabad hamigan iyo riyadan la timid oo aadba sidan ku riyoonaysid maasha allah tabaarakallah ilaahay baa ku garab istaagay oo ku gacan qabanaya ku soco lama dhahayo niyaddaa laga burburinayaa marka qalbigii baa laga jabinayaa marka qofkaas oo kale waa qofka naftiisa qiimeyntiisu sarreyso oo qiimeynta nafta maaragtay ay sarreyso midda kale ma xawaaye oo qofka nafti qiimeyntiisu ay hooseyso naftiisu mataqaanaa qiimeyntiisu ay hayso maaragtay isu arkaba inuusan waxba qabsan karinin ama mataqaanaa uu baqaa xataa dad badan oo jecel inay wax qabsadaan waxaa jirta baqdin baqaya oo cabsanayo alla ma samayn karo alla kan ma samayn karo ama ma hadda duq baanahay waan gabo maxaan samayn karaa waxaa laga yaabaa gabar yar oo 30 jir oo intay guursatay inay dhahdo saacadan waxba ma baran karo waxba ma samayn karo maxaan samayn karayaayo ay ka cabsataba mataqaanaa maaragtay inay higsi ama hami ama riyo ay yeelato oo ay mataqaanaa ay maxaan ku dhahaa aysan lahayn wax oo maaragtay aragti fog ah aragtidiiba maaragta kusoo kooban tahay marka waxaa keenaya taas marka qofku saa u fikiro waxaa keenaysa waxa weeyaan qiimeynta naftiisa hooseysa oo waxa weeyaan malaha maxaan ku dhahaa higsigii kaloo aan ka sheekeeyay malaha cabsi baa ku taagan waxa u diidaysa mideeda kale dad badan waxa u keenta inay mataqaanaa qiimeynta naftooda hooseyso ama ay isliidaan ama ay baqaan ama ay wax ka cabsadaan waxa u keena maaragta wax soo maray experience ama waaye aragnimo waxay soo mareen oo maaragta soo maray dhibaato soo gaartay ama maaragta xataa mararka qaarkood qofka markii hooseyso maaragta inuusan wax iska difaaci karin ama uusan lahayn aragti fog ama had iyo jeer maaragtay uu ka fekeraba maaragtay dhinaca qaldan ka fekero waayo qofka marka qiimeynta naftiisa hooseyso qaladku ka fekeraa uma fekero maaragtay dhinaca fiican
uma fekero wax fiican inay soo socdaan rajo fiican iyo riyo fiican kuma fekero wuxuu ku fekeraa had iyo jeer maaragtay waxaa imaan kara maaragtay aniga ma ahi qof mataqaanaa ku fiican waxaas aniga waxaas ma qabsan karo maxaa lay dhahayaa cabsi buu ku jiraa maaragtay iyo maaragtay marka waxaa dhici kartaba xataa inay maaragtay dhibaato maskaxeed iyo waxaas u geysato iyo dhibaato nololeed maaragtay hoos dhigkaas uu hoos isu dhigayo maaragtay ama uu ka cabsanayo qofkii wax ilmihiisa la xiriira xataa iyo faamiliga dhan ilmaha ma uu ku boorinayo ama ma ku garabgalayo inay xataa wax samaystaan waxaa dhici kartaba inuu ilmihii ma samayn kartid iska fadhi hadda marka innaga bulshadeena waxaa kaloo ka qaadata qayb weyn waxa waaye gabdhahoo kale sida laynoo la isticmaalo inta badan gabdhaha soomaalida naanaag baa tahay maxaad meel naga fariiso naag baa tahay hooyadii baa waxay naag gurigaan iga shaqeeya maaragtay naag baa tahay meel ma awal baad mataqaanaa nin baa ku guursanaya meel ma gaaraysid maaragtaa hadda xoogaa isbedbedel baa dhacay laakiin ilaa iyo hadda xataa dadkan magaalooyinka jooga xataa meelahan aan joogno waan ku arkaa dad badanoo maaragtay hooyooyino oo dhahaya gabadhna adigu naag baa tahay maaragtay waa lagu guursanaya nin baa ku guursanaya gurigaan iga shaqey waagii horena waxa waaye naag baa tahay bay ahayd xaaladda guriga iga shaqey marka taas darteed baa keenaysa maaragtay in qofka maaragta waxyaalaha niyadda ka jabiya bay kamid tahay maaragtay niyo jabta ku rida oo u keenaya maaragtay inuu qofkii uu wuxuu qabsan lahaa ka boqo ama go-aan u gaari lahaa uusan go-aano badan ku qaadan karinin waayo marka qofka maaragtay qaymahaasayto nafsiinka uu hooseeyo go-aanada suu ku qaataa way adag tahay mideeda kale wuxuu u noqonayaa waxa waaye wuxuu u noqonaya wuu u jilcayaa wuu u nuglaanayaa inuusan dhibaatooyinka adduunka lasoo xiriira iskama xallin karo waxa dhibka adduunka uga yimaado iskama xallin karo maaragtay waxaweye wuu u nuglaanayaa oo uma adkaysan karo oo waxa weeyaan qofkii waxa waaye wuxuu noqonayaa qof daciif oo ah wixii dhibaato u yimaada qalbigiisu ma aha ama ma aha xoog iyo quwi ma laha uu maaragtay isaga difaaco xaaladaha adduunku markay ku yimaadaan ama mataqaanaa waa qof maaragtay meelaha shaqooyinka iyo wixii ku habboonayo wax kastuu qaban lahaa iyo wax kastuu mataqaanaa uu samayn lahaa way ka hor istaagaysaa taas marka waxa waaye waa low self esteemkii iyo maaragtay xataa haddaan qofku wax ka qaban oo kasoo bixinin waxaa dhici karta inuu maaragtay xataa u geysto maaragtay hadhow haddii xaaladaha maaragtay oo sida maxaan ku dhahaa depressionka qulubka ama maaragtay isla hadalka oo kaleeto waa aad bay ugu sahlantaha qofkaas oo kaleeto ama madaxa mataqaanaa dhibirka oo kaleeto waxa ku dhaco qofkaasi waa u sahlan yahay maaragtay inuu maaragtay siduu maaragtay ay ugu dhacaan waayo waxa weeyaan wuxuu arkaba waaba aragtida wuxuu u jeedaaba waxa waaye wuxuu arkaaba waaba qaldaad buuba arkaaba wax saxa iyo wax maaragtay dhinac fiican wax ka eg asaga kuma soo dhacayso waxa weeye wax kastaba waxay u arkaaba inay maaragtay had iyo jeer wuxuu qofku ka fekeraa wax qaldan wuxuu leeyahay qofkaas aniga qof ma ahe maaragtay wax enaf ma ihi yacnihi qof ma ihi maaragtay fikir la imaan kartid qof ma ihi maaragtay riyo la imaan kara qof ma ihi maaragtay awood u leh dadka hadda qaarkood maaragtay qaar baa isagoon fool xumayn waxaa ka dhaadhacsan inuu fool xun yahay qaar baa waxaa ka dhaadhacsan iyagoo mataqaanaa jirkoodu maaragtay uusan waaweyneyn ama qaab daran inuu qaab daran yahay qaar baa waxa waaye markay muraado istaagaan waxay soo arkayaan wejigoodu inuu fool xun yahay qaar baa waxa waaye wixii waa hore ku dhacay baa hor imaanaya oo wuxuu isleeyahay mataqaanaa wixii wax uu waa xataa ku dhacay wixii baa hor imaanaya wuxuu leeyahay waxaas dartood waxba ma samaysan karo maaragtaas marka wax badan baa jira maaragtay qofka ka hor jooga maaragta inuu gaaro waxa higsigiisa uu rabo uu gaaro waxaan rabaa inaan ku raaciyo intaa waxaa jira waxaan kusoo qoray kor oo ku jirta qodobada aan ka hadlayay taas waan ka hadla labada kaleeto qodob waxaa jira aad iyo aad mataqaanaa muhiim oo ah in u baahan runtii in la fahmo qofka qodobkan waxa waaye horta intaan qodobkan gelin waxaan rabaa inaan galo waxaa jirta waxaan ay dhahayaan self esteemka waxa waaye ama qiimeynta nafta
waxaa jirta kelbad kaloo ay dhahaan self esteem other esteem. self esteem waxa waa qiimayntii nafta iyo other esteem marka waxay ka wadaan inaga Soomaalida kelmad baynu u naqaanaa other esteemka waxaanu dhahnaa qof u nool dadka kale qofka u nool dadka kale waxa waaye Soomaalidana aad bay ugu badan waana arrinta la rabo in runtii qofku uu ogaado oo uu ku dadaalo inuu iska bedelo hadduu martaqaana uu saas yahay waxa waaye dadkaas waxa waaye maxay oraraya bulshadu maxay dhehaysaa gurigaagii iyo noloshaadii waxaad qabsan lahayd awlaadaada haa waa laygu caayaya haa kidaa la ii yeelaya haa maxaa la idhahaya haa caruurtaadii waa laygu sheekaysanaya marka waxaa keenaysana waxa waaye adigii oo low self esteem baa haddana dad kale u nooshahay waxa laga yaabaa maanta oo dhan gurigaaga inaad ilmahaaga cunto yar oo caadi u soo gasho markii laba qof ay dheelalkaas waa ku imaanayaan guriga ku boodida xagga keligare xagga samee xagga waa fiican tahay inaad gurigaaga nadiifsatid laakiin wax ka dardareeyaa suubinaysaa marka waxa waaye maxaan ku dhahaa iyo in maxaan ku dhahaa aad xataa aadba u nooshahay dadka kale maxay dhahayaan gurigayga markii la soo galo waa laga sheekeeyaa oo kale waxaasoo kale waxaa keenaya low self esteem ka keenaya ama maxaan ku dhahaa qofka uu ku liito maaragtay qiimaynta nafta hooseyso waayo waxa weeyaan waxaad u nooshahay dad kale intaas waxay ku dhahaan ingiliishka waxay ku happy bay kaa dhigaysaa waad ku farxaysaa intaas waxay nolol bay ku soo gelinaysaa xoogaa maaragtay intaas yaroo aad maaragtay xoogaa dadka yacnihii waxaad u nooshahay waxa weeyaan waa coping strategy waxay dhahaan waxa waaye inaadan wixii aadan xal ka gaarin laakiin intaa yarta ah aad maaragtay aad ku nafisaysid waa wax aad ku nafisaysid oo nafis ku ah intaasaa nafis ku ah laakiin meel dheer kulma gaarayso wax aad xal weyn ka gaaraysid maaha mideeda kale waxa waaye waa Soomaalida waxaan kaloo dhahnaa istustus waxa waaye waad istustusaysaa dadka had iyo jeer istustuska la dhaho waa other esteem waa istustus waxa waaye qof kale aad u nooshahay daacad waxaaga kama tihid ilaahay dartii uma samaynaysid inaad wax gaartay wax aad samaynaysid oo dhan ha lagaa sheegaad u samaynaysaa iyo istustus marka waxa waaye nafis bay adiga ku tahay dadku adiga isma fahmaysid dadkuna kuma fahmay intaas waxa waaye nafis bay ku tahay marka waxaa fiican maaragtay ilmahaagii xataa baad waxaad leedahay hadday qaldi yar galaan ilmihii baa la dilaa lagu soo boodaya waxaa leeyahay haa maxay dhahayaan dadku haa dariska igu sheekaysanaya haa kidaa lay dhahaya maxaa lay dhahay marka waxaa fiican in qofka bini'aadanka horta asaga naftiisa ku kalsoonaado waxaa fiican inuu mataqaanaa uu dhaho mataqaanaa waxa uu samaynayo uu dhaho waa samayn karaa inuu khaladka usan u fakerin dhinaceeda uu u fakero xagga mataqaanaa waxa saxsan uu ku fakero wax positive uu ku fakero maaragtay fiican uu ku fakero inuu dhaho mataqaanaa maaragta waxan waan qabsan karaa inuusan isu arkin maaragtay had iyo jeer waa inaadan qofku uusan wada xiriirinin naftiisa iyo asaga naftiisa iyo waxa maaragtay maskaxdiisa kusoo dhacayo dareemada qaldan ah iyo naftiisa waa inuusan isku xirinin oo isku xiraa inuu asagu qof bini aadan yahay oo alla sameeyay qof qurxoon yahay naftiisa jecel yahay uu mataqaana qof wanaagsan yahay laakiin waxa aad dareemaysid ay yihiin wax qaldan marka waxa waaye qofku waxa la rabaa inuu taas sidii tii aan asbuuci dhaweyd ka hadlayo kale inuu dib isugu noqdo waxa qaldan uu u fiirsado uu soo qaato qalin iyo warqadii aan sheegayo kale ama eegaba maaragtay dhaho maxaan saan u samaynayaa oo waxa qaldan aad iska ilaalisid oo aad ku fikiraysid marka fikirka qaldan baa la diidayaa ina mataqaanaa uu hoos kuu dhigo oo waxaad qabsan lahayd ama aad samaysan lahayd ama aad go-aan ku gaari lahayd uu kuu diido oo uu kuu qaadaba maaragtay inaad xataa aad depression noqotid inaad xataa mataqaanaa aad maxaan ku dhahaa oo aad isla hadashid inaad mataqaanaa dhibir uu kugu dhaco inaad mataqaanaa qayliyo buuq ku jirtid inaad cabsatid
wax aad qabsan lahayd oo dhan aad ka cabsatid ka hor joogaan waxaan baa dhici karta. tan kale oo aan rabo inaan halkan aan ka sheego waxa waaye aan rabo inaan sheego waanigii haddeer aan soo hadal qaado waxa waaye maxay ku kala duwan yihiin qiimeynta nafta iyo isku kalsoonidu. midna waxa waaye qofka hadduu si fiican isugu kalsoon yahay maxaan ku dhahaa asagana dee sida qiimeynta nafta oo kale waa qof isku kalsoon wax qabsan kara oo awood u leh inuu wax qabsado oo mataqaanaa aan ka cabsanaynin wixii danta ugu jirto oo cabsi kuma jirto meesha markaad self esteemkaaga uu hoosta yahay uu low yahay ama maxaan ku dhahaa qiimeyntaadu ay hayso aad mataqaanaa cabsanaysid oo aad maaragtay aadan lahayn awood ama karti aad wixii aad ku wajahdo aadan haysanin aadan wajihi karinin maaragtay dareemadaadii ama waxaad doonaysay ama waxaad rabtay inaad haysatid aadan baqaynin taasoo kale marka kalsooni bay ku siinaysaa kalsooni inaad wax ku qabsan karaysid inaad maxaan ku dhahaa gaari ku wadi kartid inaad maxaan ku dhahaa ku shaqaysan kartid inaad wax ku baran kartid inaad waxaad baratay aad meel sare ka gaari kartid inaad maxaan ku dhahaa aad maxaan ku dhahaa yacni aad wax ku noloshaada ku samaysan karaysid inaad dadka xataa. laakiin waxa waaye meesha aan leeyahay maxay ku kala duwan yihiin kalsoonida iyo maxaan ku dhahaa waxa iyo self esteemku. waxaa laga yaabaa qofka self esteemkiisu hooseeyo ama qiimeynta naftiisa hooseyso waxa waaye waxaa laga yaabaa inuu qof saas uu kalsooni leeyahay. qof asagoo self esteemkiisu hooseeyo oo low yahay ama qiimeyntiisu naftiisu ay hooseyso waxaa laga yaabaa inuu kalsooni leeyahay inuu kumaan kun qof inta soo hor istaago ka hor heeso oo uu kalsoonida uu leeyahay uu wax ku heeso oo uu mataqaanaa dadka soo hor istaago laakiin macnuhu ma aha inuu self esteemkiisu fiican yahay qofka ama maxaan ku dhahaa uu karti u leeyahay maaragtay qiimeyn kartila uu haysto salafta maaragtay. waayo haddaan in yaro aan ka soo qaato mataal ah Michael Jackson oo kaleeto. Michael Jackson wuxuu ahaa nin kaad arkayseen ama aad taqaanaan oo masraxiyadda markuu soo istaago millions of qof uu soo istaagayo uu heesaayo magaciisa waxa waaye marka ninkaas saas u heesaayo oo masraxiyadda imaanaya oo dadkoo dhan intaa oo milyan fiirsanayso loo sacbinayo loo magaciisinayo mar alla markuu ka baxa masraxa uu gurigiisii tago waxa waaye dee xaalad kale u galaya xaaladda kale u galaya waxa waaye Michael Jackson waxaanu ognahay waaguu yaraayo baybiga ahaa aabihiis baa caayi jiray siduu yiri aabihiis wuxuu dhihi jiray waad fool xun tahay aabihiis baa maaragtay hadalla aan fiicnayn oo munaasib u dhihi jiray dad buu halkaa ka qaaday naftiisa waa qaymo jabta marka nafjab baa ku dhacay waa qaymo jaba naftiisii baa qaymo jabtay wuu maaragtay self esteemkiisa karaash ku dhacay wuu qaymo jab halkaasaa maaragtay nafjab ku dhacday nafjabkii markuu ku dhacay waxaad ka arkaysaa markaa oo isaga markaa inuu ku dhacay caddaynaysaa cuqdadii uu qabay aabihiis uu dhihi jiray ay agli baato reerkaad ugu fool xun tahay wuxuu gaaray heer inuu iscaddeeyo oo jirkiisii u bedelo waxaana u keenaysay mataqaanaa slow self esteemkaas qiimeynta naftiisa oo liidatay baa u keenaysay jirkiisuu bedelay. laakiin masraxiyadda markuu imaanaya kalsooni iyo karti wuu u leeyahay inuu ka heeso oo ka qayliyo laakiin runtii markii la joogo gurigiisa uu tago oo cid ogu aysan jirinin waa ka hadda maxaan ku dhahaa dirkiisa qaadayo maaragtay fanaaniin badan iyo dad badanna waa wada saas. marka yacnihii waxa waaye iskuma xirna qofka haddii maxaan ku dhahaa qofka oo qiimeynta nafta iyo isku kalsoonadu laba waxoo isku xiran ma aha halkaasaan ka wada. marka waxa waaye waxaa fiican qofku inuu ku dadaalo maaragtay inuu maaragtay sidii uu uga tabaabushaysan lahaa maaragtay waa inuu isku kalsoonaadaa. innaga maadaama innaga runtii aad iyo aad maaragtay kalsoonida xataa laftirkeeda caruurta markay waaridka soomaalida aan u nimaadno oo kale caruurta ay noo timaado oo kaleeto
haddii ilmaha xataa kuula yimaadaan maaragtay wax badan ilmaha marka yaryar way iska hadlaan oo way riyo badan yihiinoo waxay taasaa noqonaa waxaasaa noqonaa waxaasaa noqonaa waxaasaa noqonaa bay noqdaa say ku bilaabato waxa waaye ilmaha wuu isbedelaa boqolaal jeer buu isbedelaa waxa weeyaan mar wuxuu dhahayaa anigu heestaa baan noqonayaa mar wuxuu ku leeyahay waxaa noqonayaa mataqaanaa baylod baa noqonayaa marka hadba wax buu sheegayaa ilmihii marka lama rabo in ilmaha qalbiga laga jabiyo saasay siday ku bilaabato waaye mataqaanaa qaymo jabka nafta qaymo jabka nafta wuxuu ku bilowdaa ilmiha markuu yar yahay ama adoo weynba markaad intaad higsi la timaadid aad wax rabtid aad xiise u qabtid lagu niyadda lagaa dilo lagu dhahaa maxay waxaad ka hadlaysa waxaas ma qabsan kartid meel joog waa maxay wax ku hadlaysa marka waxaa la rabaa qofkii inaad xataa hadduu dhaho dukaan baan furanaya usoo shilin haysan inaad ku garab gashid aad tirahdid waad ogtahay inuusa waxba haysan laakiin niyaddaad u dhisaysa waxaad leedahay haa ilaahay talada saaro waad samaysanaysaa adduunka waxa waaye aniga waan xasuustaa aniga oo dhalinyaraha xamar jooga baa waxaan samaysanaya dukaan waxaan haystay $1,000 baan haystay $1,000 aan haystay waxaan u tegay nin oo 3-4 dabaqa dhisanaya adeerkay baan u tegay adeerkay baa ninka saaxiib ahaayeen dowladdii Soomaaliya ku jiray buu ahaa 3-4 dabaqa guri uu dhisanayay markaas waxaan ku dhahay adeero waxaa hebel baa wuxuu dhisanayaa maaragtay gurigaas waxaan ka rabaa jidka 30 jidka la dhaho waxaan ka rabaa in dukaan la iga siiyo aniga 1,000 baan haystaa marka gabar aan saaxiib ahayn waxa jirtay ganacsato ahayd oo dhalinyaro ah maasha Allah lacag haysatay markaas waxaan ku iri dukaan baan furanayaa saas inta i fiirsay waxay tiri ilaa iyo hadda Allah yarxamo gabadhi way dhimatay ilaa iyo hadda ma ilaawo kalmaday i tiri waan xasuustaa weligeyna aniga lagama yaabo qof inaan ku dhaho waayo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan lacag maaha iyo xoolo waa niyadda qofka niyaddu haayo lagama jabiyo niyadda waxa weeyaan qofka niyad hadduu kula yimaado maxaan ku dhahaa boori waxaad ku tiraahdaa kartidan iyo niyaddanba hadduu la yimid iyo riyadan carruurtaada ha noqoto qof walaalkaaya ha noqo qofkuma yeelo ku dadaal inaad ku boorisid waayo dhaawaca aad u geysanaysid baadan ogeyn innaga bulshadeennuna waaba 90% dhaawac baan isu geysanaa annaga ma nihin dad iscaawimo oo isku caawima ra'yiga mataqaana qofku la yimaado isku caawino waynu runtii waxa weeyaan waan isku qosolaa marka gabadhi baa waxay igu tiri way igu qosashay saas inta ii fiirisay tiri ma adiga sameynaa shibba iri kelmad kaliya kuma dhihin xabad dambe uma dalcin gabadhi waan iska tagay waxaan u tagay ninka adeerka marka u tagay wuxuu yiri ninkii sarti la dhisay wuxuu ballan baan qaaday inaan ku siiyo sarti buu siiyay saaxiibo badan iyo dhalinyaro badan oo saaxiiba ila jirtay dukaanka ugu qurux badan xamar ka furtay oo sahara shoob ah u bixiyay kaal iska ah yarka marka waxaan ka wadaa waxa waaye qofka riyada laguma cesho qofka marka self esteem waxyaalaha ku dhisay assalaamu calaykum wa mahadsantihiin intii farsanaysa faa'isa walaashay kulligii waa idin jeclahay soo dhawaada maaragtay gabdhaheena waa idin jeclahay walaalayaal waqti dambaan soo galay laakiin maaragtay insha Allah marka yacni waxa weeye qofka bini'aadanka wuxuu u baahan yahay qof weyn iyo qof yar iyo qof carruuraba in niyadda loo dhiso niyadda la dhisayaa waxa weeyaan waxay kaa xafidaysaa yacni awood waxay ku samaynaysaa inaad xataa wax qabsatid maaragtay inaad xataa aad wax hiigsi yeelatid inaad mataqaanaa aad isku kalsoonaatid bay ku siinaysaa niyad dhisku saas darteed baan u dhahayay niyadda maxaan ku dhahaa qamyanta nafta iyo isku kalsoonidu waa laba nooc saasaan darteed u lahaa waan ku dhahayay Michael Jackson aan soo qaadanay aan dhahay Michael Jackson waxa waaye self esteemka uu ku liitay oo qiimeynta laftiisa waa hooseysay waayo uu is cadeyn jiray aabihiisa waxay ka timid aabihiisa soo caayay ka timid oo ku caayay maaragtay fooxumo taas way buu is cadeynay laakiin masraxiyada self kalsooni wuu qabay kalsooni weyn buu qabay masraxiyada intuu soo hor istaago ayuu ka heesay waa marka qaarkood hadda inaga saan hadda ay u sheegay carruurteena oo kaleeto gabdhaha yar carruurta yaryarka ay waxna be singer inaan heesaan rabaa bay ku leedahay marka hadda jug siino aan dhahna ma adiga muslim baa tahay haga ilmaha yarka kuwa college-ka dhigtaa xataa konton jeer isbedela jaamacada ay konton jeer isbedela ma wax maniyadiisa ma rabtaa ha okay
allaha ku gaarsiiyaa baa ku filan in la yidhaahdo marka uma baahna maaragtay inaan ilmihii niyadda ka jabino uma baahna qofkii weynaa in niyadda laga jabiyo uma baahnin maaragtay inaan maaragtay aan anaga iswada dhaawacno marka qaarkood ma anoo fikra waxaa is dhahaa talow horta maxaasid baanaa bulshadeenu maxaasidiin bay u badan tahay wallaahi inaana wax kala dhigin waan arkay hadda waxaa laga yaabaa gabar yar oo maaragtay qof kastaba ha ahaada laakiin gabar yar markii la guursado oo caruur dhashay oo ama ilmaheedii ilma dhashay oo waddankan ilma ku dhashay waxaad moodaa lifekooda ama raggaba noloshii oo dhan bay iska soo xirxirayaan waddamadan qurbaha hadda markaanu nimid annaga markaan college-ka aadi jiray waxaan arki jiray niman badan oo yidhaahda naama maxaad ka samaynaysaa intaa markaan ku arko boorsaad wada tahay ma jaamacadaad ka baxaysa yacnihii waxa waaye xataa waxaysan kuu quurinin inaad iskuol aadid waxaysan kuu qorinin inaad wax qabsatid magacyay ku bixi halgamayso maxaan ku dhahaa kida bulshadeenu waa bulsho ummadda kale ka gaara qof haddaan aragno xataa walaalkeena wax bartay ama wax gaaray ama nolosha maasha allah qofkaas meel buu gaaray inta tiraahdaa aad ba u yarta inta kale waxa waaye meelahaasa daldalo looga keenaya sidaasay ahaan jirta xaggu ahaan jir waxaa moodaa adiga mustaqbalkaagii marka waxaan u malaynayaa kulligeen waxa weeyaan low self esteem ba inaanu nahayba saanu bulshadeena uba nahay aan bulsho u nahayba runtii waxaan wada nahay low self esteem waxaanu nahay xaasidiin dad u badan waxaanu nahay dad mataqaanaa aan lagu soo korinin isku kalsoonaan iyo inuu higsi yeesho waxaanu nahay gabdhaha especially dumarka waxaa layna yidhahdaa haddii jeer waad argteen waxaa layna dhahaa mataqaanaa naag baa tahay maxaad qabsan kartaa adigu naag baa tahay maxaad samayn kartaa adigu xaggaa tahay wiilashii baa lagaa kormariyay wiilashiina meel ma gaarin gabdhahaabaa la qaataayo intaas maaragtay faamiliyadii waxaas la rafanaya iyagana waxa weeye waxaanu dumarka soomaalida hadda maxaan ku dhahaa aad iyo aad u depressionka ugu badan gabdhaha aniga markaan la shaqaynayo gabdho badan baa waxay ugu yidhahdeen sidee baan carruurta u korin karnaa haddaa annagii laftigayagii aanan fid ahayn annagii laftigayagii waa u baahan bay dheheen caawimaad carruurteenni marka waxa waaye carruurtii ma waqti baan u haynaa annagii baaba caawimaad u baahan oo ina mataqaanaa horta aan marka hore aan quwi yeelano strong noqono annagii aan mataqaanaa bliis annaka caawimaad u baahan marka waana run waayo waxa weeyaan ayadoo baayaddan ka nimid oo saas ahayd oo baayad aan dadka maaragtay ku boorin wax ahayn oo tala fiican siinin oo wanaag u sheegin ayadoo ahayd baayadeedii baa haddana halkaan markaan nimid ilmo koris cidlo lagu noqday cidladaasaa la yimid marka waxa weeyaan wixii aad soo martay maaragtay mideeda kale maana hooyooyinkeena aniga ma baleem garaynayo ma dhahaayo waayo ayaga laftirkoodaan wax soo caawi ma arag ayayooyinkooda baan wax soo caawi ma arag societyga bulshadan ka nimid oo dhan baabaan ahay ba aan u samaysnaynba bulsho iscaawimayso oo isnaxariis lacag waa laga yaabaa inay isi siiso laakiin waxa kaleeto maaragtay way ku yaryihiin marka horta hadalka waa badiyey waxaan rabaa horta tan self esteemkii waxaan halkaan uga baxayaa 6 wiigaa ugu talagalay midda anayto inkastoo wax badan oo runtii laga hadlayaa jirto hadhow waxaan rabaa inaan ka hadlo maaragtaa insha allah wiigaga soo socda sida qofku maaragtay markii qof wax ku yiraahdo ama maaragtay sida aad ugu jawaabaysid haddii qof hadal xun ku dhaho kaleeto how to respond adoon reaction samaynin oo wixii ka xanaaqin oo ku boodin how to respond midda kale waxaan rabaa inaan runtii aad ugu dheeraado oo ka hadli doono arrimaha maaragtay tarbiyada carruurta iyo qoyska kuwaas baan rabaa inaan wiigaga soo socdo xoog uga hadlo maaragtay dad badanna ay weydiistaan maxaan ku dhahaa laakiin tan waxa waaye maadaama gabdho badan ay yiraahdeen arrinta mataqaanaa horta arrinta intaan la gaarin family iyo qoyska annaga waxaan rabnaa maaragtay in maaragtaa aniga hooyo ahaan ama maxaan ku dhahaa aabbe ahaan ama qofku horta marka ugu horreysa waaridka laftirkiisu waa inuu fid u yahay waa inuu mataqaanaa wixii asaga uu maaragtaa laftirkiisu uu diyaar yahay in maaragtay ama u diyaarsan yahay inuu carruurta tarabiyadeeda si u tarabiyeyn lahaa waayo naftaada adiga markaadan maxaan ku dhahaa aysan naftaada markaad adiga aad wax tabanaysid ama
dadka qaarkood depression qabaan ama dadka qaarkood walwal badan ku jiro ama dadka qaarkood stress badan qabo ama dadka waxa weeye wax kasta oo adigii aadan xallin karinin ama aadan maarayn karinin markaa caruurtii saameyn bay ku yeelanaysaa reerkii oo dhan bay saameyn ku yeelanaysaa marka waxa waaye insha allah waxa weeyaan waxaan rajaynayaa horta qofku waxa weeye waxa uu samayn karo waxa weeyaan inuu ku dadaalo inuu qaylada iska yareeyo inaad heshid haddaydan ila soconin wiigii dhaweyd waa inaad heshaa me time waqti aad qaadataa waa inaad qofka marka aad mataqaanaa la hadlaysid adoon qaylin aad la hadashaa oad ogaataa qofka aad dhahdaa haddaad aragtid for example haddaad xanaaqsan tahay qofka adoo xanaaqsan haddii qof kugu soo baxo oo aad qofkii mataqaanaa aad aragtid hadalkii inuu muran isu bedelo waxaad ku leedahay qofka mataqaanaa hadda ma hadli karayo wax biliis hadhow waxaan rabaa hadda ma hadli karayo markaan waan xanaaqsanahay markaan dego ayaynu wada hadlaynaa marka qofka wuu kaa aamusayaa markaas markaa degtid baad wada hadlaysaa haddii qof mataqaanaa ilmahaaga aad maxaan ku dhahaa ay mataqaanaa aad ama soo daahaan ama meel ka yimaadaan oo aad ka welwelshid welwelkii waxa waaye horta waxaad ku dadaashaa inaad isdeshisid ood waqti aad u samirtid oo ilmihii waqti siisid yar oo aad ku hubsatid waqtigu imaan jira inuu yimaado oo welwelkii aad iska daysid dabadeedna marka ay yimaadaan aad adigiyo aan xanaaq ku dadaal inaadan xanaaqin waayo haddaad xanaaqdid inkastoona rabina caawa inaa arrimahan ku dheeraado oo caruurta haddaad adiga xanaaqdid ilmihii wax alla wixii aad rabtay inuu kuu sheego kuma sheegay wuu kaa qarsanaya waayo wax weeye xanaaq baad ka hor keentay marka waxa waaye xataa si kastoo ay u adag tahay ku dadaal inaa isdejisid neefta tartiib ta u qaadatid saas uma haddaad ii jeedaan saas dhahay sanka aad ka qaadanaysaa tartiib baad usii daynaysaa neeftaas waxay kuu siinaysaa wax alla wixii xanaaqa saarnaa way ku dejinaysaa acuudu billaahi min ashaytaan rajiim baad leedahay waad isdejinaysaa markaad isdejisid adoo degan oo tartiib baad waxaad leedahay qofkii hebel kuna dadaala qofka magaciisa inaad ugu yeertaan waayo adigana way ku caawimaysaa qofkana way caawimaysaa qofkii xataa wuxuu garanaya inaad qiimeynaysid oo aad value u yeelaysid sida adigu waa mataqaanaa self esteemkaan uga hadlayna waxa way naftaadaad qiimeynaysaa qofka marka had iyo jeer qofka ama ninkaaga ha noqdo ama ha noqdo mataqaanaa ha noqdo caruurtaada ama ha noqdo qof kaloo aad la hadlaysid qofka aad la hadlaysid ku dadaal inaad magaciisa ugu yeertid magaciisa markaad ugu yeertid qofka xataa laftarkiisa wuxuu u istaagaya wuu ku dhagaysanaya wuu ku ixtiraamaya marka waxa weeyaan markaa waxa weeyaan qofkii waxa aad tabanaysay hadda waxaad ka tabanaysay hadduu soo daahay hadduu wax qaribay hadduu wax sameeyey waxaad ka tabanaysid baad u sheegaysaa hebel sidaan iyo sidaan iyo sidaan baad samaysay mana kugu raacsanay sababtu maxay tahay ii sheeg sababta ii caddee adoo aan codkaaga kor u qaadnayn waayo codkaaga bini aadanku waxay la socdaan xataa afkeena kelmadda kala soo baxaysa maaha wejigeenaasaa la aqrisanaya albaabka markaad ay ka soo galaan ama adigu aad ka soo geshid wejigaagaas baa qofku raacaya oo la socdaa moogta marka waxa waaye iyo codka sidiisa codka dheer iyo codka gaabanna waxay kala leeyihiin maxaan ku dhahaa sid gaar bay waa la kala yaqaanaa waxay kala leeyihiin maxaan ku dhahaa fasiraad kala noocay leeyihiin waxaa laga yaabaa qofku markaad codka gaabisid oo codkaagu gaaban yahay inuu qofku mataqaanaa uusan kaa didin oo uu ku dhagaysto laakiin codkaaga markuu dheer yahay xataa adoon xanaaqsanay xataa hadduu codku dheer yahay qofku wasasayaa marka adoo codkaagii miisaamaya oo dhexdhexaad ka dhigaya oon qaylinaynin ilaa adiga laftirkaaga dhiiggu inuu blood circulationka waxaa leeyahay blood levelka inuu ku kaco maaha oo cirka ku tago dhiiggu marka waxa waaye had iyo jeer ku dadaal inaad codkaaga dhexdhexaad ka dhigtid marka aad la hadlaysid oo maaragtay wax aad rabtid inaad maaragtaa aad sheegtid oo rabtid in amarkaaga la qaato adoon kontaroolayn oo aan gelaynin control hadalkaaga waxaad ka dhigaysaa hadal aan daciifna ahayn
hadal mataqaanaa kor qaadanayo qaylana ahayna aad waxaad leedahay hebel soo kuma aanan dhihin qolkaaga soo hagaaji hadaayito marka saasaad leed hebel hadaayay maxaan kugu iri maku iran ma dhihin miyaan qolkaaga soo hagaaji marka wuxuu arkayaa codkaagii oo nool buu arkayaa oona qaylo ku jirinin wuxuu arkayaa waxa aad leedahay inaad kaa dhab tahay buu arkayaa haddaad laakiin tirahay hebel adigii waxa waaye dhib baad isu geysanaysaa asagii wuxuu leeyahay maxaad la qaylinaysaa ninkaagii baa ku dhahaaya naagtaadii baa ku dhehaysa ilmahaagii baa ku dhahaaya kii walaashaa baa ku dhehaysa walaalkaa baa ku dhahaaya yacnihii waxa weeyaan waxa haddeertaan mataqaanaa waa ku dheeraaday hadalkii laakiin insha allah waxa waaye arrintan mataqaanaa wiigga asbuucan soo socda tan mataqaanaa maxaan ku dhahaa daryeelka maxaan ku dhahaa caafimaadka maxaan ku dhahaa maskaxda hal asbuuc baan ku darayaa inkastoon gadaal mararka dambe ku dari doono laakiin waxaan rabaa inaan arrinta caruurta galo oo tarbiyada caruurta aan galo asbuucyada soo socda asbuuc ka bacdi baan gelaya tarbiyada caruurta waaweyn oo maaragtay wixii adiga kuwa waaweyn oo laga yaabo laga bilaabo 6 iyo 10 ilaa iyo 5 iyo 20 sida loola hadlo sida loola xiriiro sida mataqaanaa hadda waad aragtay waayadan dambeeto ilmaheena maaragta dhibaatooyinkii baa batay dilidii baa badatay waxaasaa batay ilmahaagi si ay waxa jira kugu sheegaan qaab loola hadlaa jira oo aan qaylo ahayn oo aan buuq ahayn ilmihii kugu soo dhowaan karo aad ku sheekaysan kartaan oo aad kaga dhagaysan kartid waxyaalaha mataqaanaa marka bulshada xataa waxa igu maqaalaa ibaa xataa waddankeeni in maaragtay waaridkii 30 sano suuqyaday wax ku gadayaan waxaasay ku gadayaan ilmihii dhexday ka baxeen qaar baa iska tahriibaya qaar baa iska wareegaya qaar baa meel kasta iska maraya kuwa halkan joogay mataqaanaa mindiyaa la wada sitaa lagu magaciisi boqolaal sheekaan maqlaynaa marka waaridka iyo ilmaha xiriirkooda baan rabaa inaan xooga saaro insha allah waxaan kaloo aan rabaa inaan ka hadlo maaragtaa kobcinta caruurta child development sida waqtiga lagu bilaabo tarbiyada waayo tarbiyada haddaad ilmahaaga hore kaga bilowdid oo adiga iyaga isla qabsataan xiriirkiinu waa fiicnaanaya waxa waaye inta badan anigu waxaan u saarinayaa 10 sanaan ka shaqaynayaa arrimahan waaridka iyo caruurta iyo mataqaanaa iyo maskaxda caafimaadkeeda boqolkiiba waxaan dhihi karaa 70 maanta waxa dhacayo Soomaali ku dhacaysa waaridka u sabab qof kale u sabab ma laha sababahaasna waan keeni doonaa ay ugu sabab yihiin waan ogahay sababaha ugu saban yihiin cayda kamida afxumada kamida guriyaha qaarkood waa lagu caytama waxa la kamida mataqaanaa iyadoon ilmahaagii lala socon hooyadii waxa laga yaabaa maanta oo dhan intaasay tatangee iskuulkan iskuulgadiga xagga iskuul inaana mataqaanaa cunto ay ku gado dhar fiican u gado wax kasta siiso laakiin dareenka xaggiisii oo la dayacay oo cid dareenkooda aan wareysanaynin la soo fariisinaynin lala sheekaysanaynin anigu ma arko sabab inay hooyo ilmo dhashay oo ilmo yaryar haysataa ay inta cunto siiso oo maxaan ku dhahaa dhar siiso iskuul ka keento inta guriga la joogto ay ama telefoon qabsato mararka qaarkood inkastay time u baahan tahay oo 10 minutes ay u baahan tahay me time la asbuuci dhawad waarigii sheegay qofku waa inuu haystaa me time laakiin me time kaaga xataa ilmahaaga kuwa yaryar iyo adiga isla dhihi karo okay soo baxa halkan aan wada fariisana halkaas adahaysaa ilaah baan baryeenayo tartiib inta xasuusatid laakiin iskuul haday ka jiraan waa weynaadeen waxay ku xirantaa qofka ilmihiisu hadba intay legli egyihiin laakiin wax waaye ilmaha waxa fiican haday game ciyaarayaan la ciyaartid hadday film fiirsanayaan la fiirsatid hadday sinima aadayaan la gashid hadday buug akhrisanayaan la fariisatid sheekaan idinkaga sheekaynayaa jirta sheekada idinkaga sheekaynaya waxa waaye laakiin dib baan u dhiganayaa sheeko fiican waaye laakiin kama sheekaynayaan marka ilmaha xaalkooda galaan ka sheekaynaya marka waxa waaye ilmaha waxaad kula socon kartaa saaxiib kula noqon kartaa markaad dhex gashid xaaladooda og tahay mid kasta gaar ula sheekaysatay ilmaha waxa lagu leeyahay maalin kasta every day maalin kasta ilmihiiba midkiiba gaar ma aha mid kulligood isu keenaysa midkiiba gaar 10 haddaad dhashay adaa isu dhalay
midkiiba gaar waa inaad 10 daqiiqo siisaa ama 5 daqiiqo si kale waa weyn yihiin aad kula sheekaysatid waa inaad siisaa oo aad meel la fariisatid oo xaalkooda weysatid waxa kale lagu leeyahay ilmaha albaabka markay ka soo galaan wax kasta aad haysay guriga waa inaad joojisaa dhulka dhigtid ayaga aad u soo jeesatid oo aad la sheekaysatid aad tiraahdo assalaamu calaykum maalintaadii maanta see ahayd iskoolka iga waran haye ilmaha wax aan ka sheekayn doonaa ka jira oo la dhaho security base waxa waaye meel nabada ay ku soo noqdaan 40 hadduu jiro 40 konton hadduu jiro oo ilmahaasito uu haysto meel uu ku soo noqdo oo waagu yaraa laga maartay xiriirkaasu bilowday 40 hadduu jiro meel kastuu joogo dib buu kugu soo noqonaya markii wax ku dhacaanba hooyadii buu leeyahay ama aabihii buu dhahaya dib buu usoo laabanaya marka caawa warka waa ku dheeraaday gabdho iyo wiilal aad baa horta u mahadsantihiin I hope inaan mataqaanaa aan maaragtay wax fiican idiin soo gudbiyo waan rajaynayaa inaan kala faa'iidaysano waxaan rabaa laga bilaabo hadda ka bacdi wixii ka dibcay waxaan u gudbayaa waxaan ka samayn doonaa YouTube-kayga oo ah maskax kobcis channelkaasa u wareegi doonaa insha Allah waana sheegayaa marka aan wareegayo maxaan ku dhahaa khayr iyo bashbash baan idiin rajaynayaa waxa fiican dadka waa lala wadaagaa u gudbiya dadka kaloo walaaliheena maaragtay insha Allah waan maxaan ku dhahaa waa idin jecelahay assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuhu ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo awlaadda ha idin xaftiyo anagana Allah ha xiftiyo iyo awlaadeydaba aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh